يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك. mid ka mid ah dembiyada ugu halista badan ee uu shaydaanku ku dago dadkana kuna dhacaan waxaa ka mid ah inay adduunyadu hanato qulubtooda ayna ka faa'iidaysato awoodooda taas oo aan u reebin waxyar oo ay kaga hortagi karaan arrinkaas ayna awoodi waayaan inay naftooda ka badbaadiyaan dunuubta iyo dhibaatada ay adduunyadu leedahay iyagoo xalkaas ku sugan ayaa waxaa la dheeraan doona waqtiga sidaas ayayna ku raali noqon doonaan waxayna isku dhiibi doonaan shaydaanka maalmuhuna way kadin doonaan iyagoo noloshaas farxad u arkay heer uu arrinku la gaaro inay moodaan inay wanaag ka shaqaynayaan imise ayaana soo martay xaalad noocaan ah oo aan is aragnay inay noloshuna la degtay si tartiib tartiib ahna allah inooga fogaysay hurdada aan ka kici weyno anaga iyo daacaddana ay inoo dhexayso masaafo dheer amba aan iska hilmaamno ilaa aan ka gaarno in aysan dhibaataba u arkin wixii naga tegay oo khayr ah maxaa yeelay waxaana la wanaagsanaaday qaabka aan ku sugannahay islamarkaana aan u dhaqaaqi weynay waddada hanuunka maadaama aan isku qancinay inaan toosnaan ku sugannahay waan halkaas meesha uu shaydaanka inooga xiro dhammaan albaabada toobada uuna naga jarjaro kasta oo aan allah ka leelanahay allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون kani waa xaalka dadka qafladda ku sugan ee uu qur-aanka inooga waramay isagoo caddeeyey sifadooda waxa uu allah casa wajalla qur-aankiisa ku yidhi إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون marka ay halkaasi qafladdu marayso ayna gaarto in ay caqliga la degto waxaa lama horaan ah in loo helo dhakhtar fiican kaas oo keena daawo naajix ah maxaa yeelay cudurkaasi waa mid xun oo asiibay ruuxda qofka muslimka ah isagoo dulinimada iyo cisyaanka ku raali noqonaya indhihiisuna adduunyada ku xirayo uusan wax kale arkaynin dadka kalena aysan maskaxdiisu ku lahayn wax mansilyad iyo qiimo ah hal mar oo aan si wanaagsan ugu fiirsano ayaa inooga filan in aan ogaano heerka aan ka gaarnay dhalanteedka qafladda in qalbiga uu dhaqdhaqaaqo markii adduunyo la sheego markii aakhiro la xusana uusan isbeddel ku imaan waa xaalad halis ah waana tilmaamaha la siinayo qof kasta oo caqli u saaxiib ah waxaana daliil u ah in qafladdu ay halis ku tahay iimaanka in ay shabahdo sida qofka qaafilka ah ee maandooriyaha daa'imay kaas oo aan kasoo kacaynin qalbi daboolnaanta islamarkaana aan dhargaynin ilaa ay taasi gaadhsiiso inuu ku noolaado nolol khiyaali ah waana sidaas oo kale xaalada dadka qafladda ku jiro sida ay ku dhammaato nolosha dadka khamrada iyo daroogada daa'imo ee ah inay caqliga ka tirtirto amba ay shalal ku rido qaar ka mid ah xubnaha jirkiisa ayay qafladu dadka u horseedaa inay ruuxdooda ka saarto daacadda allah qalbigiisa iyo kumacansiga iimaanka ay kala teedaan derbiyo waaweyn allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون in qofka la xanuunsan qafladdu uu mar waliba danaynayo waxyaabaha dilay naftiisa ee uu dalbanayo jirkiisa isagoo aan danaynayn waxyaabaha ay rabto ruuxdiisa ee anfacaya sidoo kale qofka qaafilka ah wuxuu isaga jeysanayaa ruuxdiisa iyadoo la taahaysa xanuunka haya wuxuuna sidaasi ku fiirsanayaa ilaa dhaawaceedu darnaado oo ay adkaato in la daaweeyo mararka qaar qofkaani wuxuu ogyahay in xanuunka haya uu yahay mid ka yimid qafladda ku dhacday laakiin xaaladda uu markaasi ku jiro waa sida qof daroogaysan oo kale mana ahan mid awooda inuu si sahal ah uga dhex baxo waxaa sidoo kale cawaaqibta qafladdu ay leedahay ka mid ah in qofka ay ku rido isla weyni tani ayaana asal ahaan ka dhalata nolosha qofka oo noqoto mid maran iyo inuu haysto dafci gudaha ah oo uusan ku baraarugsaneyn qofka qaafilka ah ma xakameyn karo naftiisa shaydaanka ayaana u qurxinaya uguna sheekaynaya inuu yahay kan dadka ugu karaamada badan uguna camalka wanaagsan balse xaqiiqadu ay tahay inuu ku jiro kuwa ugu khasaarada badan mid ka mid ah cawaaqibta ugu daran ee qafladdu waa caajiska uuna qofka ku dhaco macaasida iyo munkaraadka ihtimaamna uusan siinin daacadda iyo dikriga allah
heer uu gaaro in cibaadada dhan uu ka go'o ama inta yar ee uu isku qanciyey uu shaydaanka ugu sheekeeyo inuusan ka gaabin cibaadada ee uu meeshii ugu saraysay ka hayo. sidaas darteed waxa uu islaamku nagu booriyey inaan ka faa'iidaysano nolosheena adduunyadeena iyo aakhiradeenna aan wax u qabsano isla markaana ka takhalusno asbaabaha caajiska keeni kara. waysadana aan joogteeno oo aan mar waliba cusboonaysiino kuna dadaalno adkaarta iyo qur-aanka ilaa uu shaydaankii waayo fursad oo inoogu soo dhowaado. dib u soo noolaynta qalbiga qaafilka ah waxay la mid tahay dib u dhiska dhul ay dagaaladu ragaadiyeen oo kale, taas oo ugu horeen u baahan in laga suuliyo burburka iyo raadadka ay dagaaladu reebeen haddana dib loo dhiso. waxa uu qofka qaafilka ah u baahan yahay inuu qalbigiisa dib u dhiso. sidaas darteed waxa uu qofka qaafilka ah u baahan yahay inuu qalbigiisa dib ugu dhiso cibaadada, daacadda iyo suxbada dadka saalixiinta ah, isla waqtigaasna uu ku dadaalo dikriga Allah iyo rajada uu Alle ka qabo, kana qusto waxa dadka gacmahooda ku jiro, qalbigiisana uu Allah ku xiro, habeenkiina salaatuleel uu istaago. dib u dhiska qalbiga waxay kaloo u baahan tahay sabar iyo dadaal, waxay keensanaysaa himo saraysa iyo balan aad Allah kula gasho inaad dib u laabanaynin kadib markii aad hogaansatay kuna dadaasho daacadda iyo camalka wanaagsan. waxaa kaloo laga maarmaan ah in aanan quusan isla markaana aan jarinjarada Allah ka qabno, taas beddelkeedana aan sabarka kaalmaysano si aan u gaarno ajarka weyn iyo jannada Alle agtiisa ahaatay ee lagu abaalmariyo kuwa camalka wanaagsan la yimaaday. حتى تنال مناك خالف هواك وجاهد النفس التي بالسوء تأمر والهوى أغواك. النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك. أفلحت في الأولى وفي أخراك.